wacan oo wanaagsan saaxiibayaal halkani warbaahinta halbeega wararka waxaad ku soo dhawaataan warka warbaahinta qodobada idiin soo gudbi doona waxaa ka mid noqonaya khilaaf xoogan oo soo kala dhex galay madaxdii ka qayb gashay caleemasaarka madaxweynaha maamulka Jubbaland iyo hogaamiyaha maamulkaasi Axmed Madoobe taliska booliska Dhuusamareeb oo awaamir culus soo saaray ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo howlgallo qorsheysan ka wada qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe guddiga madaxa bannaan xuduudaha maamulka Hirshabeelle oo la magacaabay qamrigii ugu badnaa abid oo maanta loo gubay magaalada Dhuusamareeb qodobada ayaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal taariikhdu waxay ku beegan tahay 15 bisha 10 Oktoobar 2019 u diyaar garooba saaxiibayaal faafahinta qodobadii aad maqasheen oo inta hore ka dhameystiran channelkan halbeega wararka subscribe dhaca calaamada kambalka furta muuqaalkana saaxiibayaal sii share gareeya waa hagaag aynu ku bilownaa saaxiibayaal haddii aynu markaa magaalada Dhuusamareeb magaalada Kismaayo wararka ka imaanaya waxaa la sheegay in khilaaf xoogan oo soo kala dhex galay madaxdii ka qayb gashay caleemasaarka madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxaa la sheegayaa in madaxda qaar ay isku fahmi waayeen qodobo ay u soo bandhigeen hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam qodobadaasi ayaa waxaa la sheegay in qayb ka yihiin in magaaladaasi looga dhawaaqo urur isbahaysi oo ka ah dowladda federaalka Soomaaliya dalabkaasi ayuu ku gacan saaray madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe waxa uu sheegay in magaalada Kismaayo aan laga duminaynin dowladda federaalka Soomaaliya cidii doonaysa dowladda inay mucaarado ayuu sheegay in hadda magaalada Muqdisho halkaan ay ka soo abaabulaan wax walba ay doonayaan madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa waxa uu sheegay in madaxda haatan ku sugan magaalada Kismaayo ay halkaa u yimaadeen ka qaybgalka caleemasaarka madaxweynaha waqtiga caleemasaarka haddii uu dhamaado ayaa waxa uu sheegay in cid walba ay ku laaban doonto halkii ay ka imaaday madaxda halkaasi ku sugan ayaa waxaa ka mid ah xasan sheekh maxamuud madaxweynaha Soomaaliya sheekh Shariif sheekh Axmed madaxweyne ku meel gaarka ah iyo madax kale oo ku jiro Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo Cabdikariim Xuseen Guuled Saciid Cabdillaahi Dani ayaa qayb ka ah madaxda halkaasi ku sugan waxaa la sheegayaa in halkaasi uu ka socdo kulamo kala duwan maalmihii la soo dhaafay kuwaasoo la doonayay in looga dhawaaqo urur isbahaysi oo kana dowladda federaalka Soomaaliya xilli maalmihii la soo dhaafay jiray khilaaf ka dhaxaya madaxdii hore dalka soo martay kadib markii madaxdaasi loo diiday inay ka dhoofaan garoonka diyaaradaha Cabdullaahi Uthmaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho si ay ka qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam kol hore ayaa halkan la geliyay diyaarad qaadi rabtay madaxweynihii hore Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed taasoo halkan loo geliyay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho xiisadii ka dhalatay arrintaana cirka ayay isku sharagtay saameyn badanna waxa ay ku yeelatay bulshada Soomaaliya dhexdeeda waxaan la ogay khilaafkaasi halka uu saldhigan doono iyo qaabka Axmed Madoobe madaxdaasi magaalada Kismaayo uga soo saari doono taliska ciidanka magaalada Dhuusamareeb ayaa waxay soo saareen awaamiir culus maantay qamriga ugu badnaa abidna waxaa lagu gubay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug taliska booliska magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ayaa waxay soo saareen amaro la xiriira dhanka amniga kadib howlgal ciidamadu ay ka sameeyeen xaafadaha kala duwan ee magaalada ku yaala taliyaha saldhigga magaalada Dhuusamareeb gaashaale dhexe Cabdullaahi Xasan Macalin ayaa marka hore sheegay in magaalada gebi ahaanba aan lagu arki karin dad soo gelinaya waxyaabaha maanka dooriya iyo oo qamrigu ka mid yahay xilli maanta halkaasi qamri fara badan ay ku gubeen ciidamada ammaanka magaalada Dhuusamareeb asigoo ka hadlay arrimaha la xiriira amniga ayaa waxa uu sheegay in mararka qaar magaalada lagu arko dad shacab ah oo hub wata waxa uu sheegay taasi inaysan aqbali karin hay'adaha ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Galmudug ayaa waxa uu faray in arrintaasi ay wax weyn ka qabtaan askarigii lagu arko isagoo wata dhar shacab oo hubaysan ayuu sheegay in tilaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono waxa uu sheegay ciidamadu dhammaan awaamiirtaasi ay hoggaansamaan maanta ayaa goob fagaar ah waxa ciidamada ammaanka maamulka Galmudug ku gubeen qamriga ugu badnaa abid kuwaasoo laga soo qabtay gudaha magaalada waxaa la sheegayaa in halka uu ka bilowday howlgal lagu dagaalamayo waxyaabaha maanka dooriya oo maalmihii la soo dhaafay ku soo badanayay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug waayii dambe ayaa ammaanka magaaladaasi si weyn loo adkeynayay xilli dowladda federaalka Soomaaliya ay waday qorshaha in halkaasi laga bilaabo ama laga dardargariyo doorashada maamulka dowlad goboleedka Galmudug waxaa halkaan ku sugan ciidan fara badan oo kale dowladda federaalka Soomaaliya ee geesay ilaa hadda waxaan jirin talaabo muuqata oo laga gaaray
doorashada dowlad goboleedka galmudug walow aysan jirin saasaan la xiriirta doorasho oo halkaasi ka dhacaysa. khilaaf xooganna waxa uu ka jiraa qaabka ay u dhacayso doorashada maamulka dowlad goboleedka galmudug. xarakada al-shabaabna waxay sheegteen inay la wareegeen saldhig ciidan oo ku yaala gobolka shabeellaha dhexe kadib dagaal ay la galeen dowladda federaalk Soomaaliya. wararka laga helay deegaan hoos yimaada degmada Balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxay sheegayaan in ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya ay isaga baxeen xarumo ay ku lahaayeen deegaanka Qalimow oo 30 kiiloomitir dhinaca waqooyi kaga beegan degmada Balcad ayaa waxa uu ku yaalaa bartamaha wadada xiriirisa magaalada Jowhar iyo Balcad. waxaa la sheegayaa in ciidamada ku sugnaa halkaasi ay isaga baxeen. al-shabaab oo ku sugnaa meel aanan sida uga fogeyn deegaanka Qalimow ayaa waxaa la sheegay inay soo galeen deegaanka lana wareegeen saldhigii ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya ee kaga sugnaayeen ceelka Geelow. ilaa hadda ma jirto waxaana ka soo baxay ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya kaasi oo ku aadan in al-shabaab ay la wareegeen saldhig ay ku lahaayeen halkaasi. saraakiisha taliska qaybta 2-aad ciidanka xoogga dalka Soomaaliya wali wax waraaka ma soo saarin walow xirro kala duwan la sameeyay. waxaa noo suurtagelin in madaxdaasi wicitaankeena ay ka jawaabaan. maalmihii la soo dhaafay dagaalyahanada weesana xarakada al-shabaab ayaa waxay dardar gelinayeen howlgallada ay ka wadaan gobolka shabeellaha dhexe. waxaa halkaasi iska horimaad xoogan ay kala kulmayeen ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya walow ciidamada lagu aadeynayo maalmaha la soo dhaafay inay ka gaabiyeen howlgalladii ay ka wadeen gobolka shabeellaha dhexe. markana magaalada Dhuusamareeb hadii aynu ku laabano waxaa la sheegayaa in halkaasi uu ka socdo kulamo kala duwan oo gooni ah oo u dhaxeeya madaxda dowladda federaalk Soomaaliya iyo maamulka Ahlusunna wal Jamaaca. wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ayaa waxay ku soo waramayaan in dowladda federaalk Soomaaliya madax ka tirsan halkaasi kulamo ay kula leeyihiin madaxda ugu sareysa maamulka Ahlusunna waxa ay kala hadlayaan qaabka loo xalin karo khilaafkii ka dhashay guddiga doorashada madaxweynaha maamulka dowlad goboleedka galmudug iyo qabanqaabada doorashada maamulkaasi. kadib markii dowladda federaalk Soomaaliya gaaraan wasaaradda arrimaha gudaha warqad ka soo baxday ku magacaawday guddiga farsamada ee maamulka galmudug ayaa waxaa jiray khilaaf xoogan ee guddigaasi ka dhashay. waxaana ay dowladda federaalk Soomaaliya ay dadaaladii ugu xooganaa oo ay ku bixinayso qaabkii dowladda federaalk Soomaaliya maamulka galmudug ay u dhisi lahayd Ahlusunna wal Jamaaca u qanci lahayd. maamulka Ahlusunna wal Jamaaca ayaa waxay sheegayaan in dowladda federaalk Soomaaliya uga baxday heshiisyo hore ay ula gashay maamulka Ahlusunna walow ilaa haddana ay jirin go'aan rasmi ah oo ka soo baxay marka laga reebo in Ahlusunna ay qaadacday guddiga doorashada ee dowladda federaalk Soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha soo saartay. hadda waxaa ku sugan magaalada Dhuusamareeb siyaasiyiin ka tirsan dowladda federaalk Soomaaliya kuwaas halkaas u jooga dhexdhexaadinta khilaafkan soo kala dhaxgalay madaxda dowladda federaalk Soomaaliya iyo maamulka Ahlusunna wal Jamaaca kaas oo ku aadan tabaashada Ahlusunna ay qabto. ma markii ugu horeysay khilaaf caynkan oo kala uu soo kala dhaxgalo madaxda dowladda federaalka iyo maamulka Ahlusunna wal Jamaaca. waxaana dowladdu maalmihii la soo dhaafay waday dadaal ku aadan qancinta maamulka Ahlusunna wal Jamaaca ee ku sugan degmooyin deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud. dowladda federaalk Soomaaliya ayaa waxay maalmihii la soo dhaafay dardar xoogan ku waday qabsoomida doorashada maamulka galmudug. hase yeeshee maalmahan waxaa ku yimaada hakad kadib markii la mucaaraday ama la qaadacay guddigii farsamada maamul sameynta galmudug oo dowladda federaalk Soomaaliya soo dhistay. sidoo kale waxaa jira murashaxiin ku sugan magaalada Muqdisho kuwaas soo qaadacay guddigaasi. waxaana murashaxiintaasi kamid ah Cabdiraxmaan Odawaaye Kamaal Guutaale waxaana sheegeen guddigaasi inay yihiin dhalinyaro aanan doorashadaasi dardar geli karin. waxaana sheegay dhalintaasi in laga soo xulay xafiisyada kala duwan ee dowladda federaalk Soomaaliya. ilaa hadda wax natiijo ka soo baxay kulamadaasi ma jiraan. saaxiibayaal wixii waray ku soo kordha halkan ayaad ka daawan doontaan haddii Allah awoodo la ogolaado. maamulka dowlad goboleedka Hirshabelle waxay magacaabeen guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha ee dowlad goboleedka Hirshabelle. wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda hoose maamulka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxay soo magacaawday guddiga xuduudaha ee maamulka dowlad goboleedka Hirshabelle. wareegto ka soo baxday wasiirka arrimaha gudaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cali Caadle ayaa waxaa lagu magacaabay guddigan oo kooban 9 xubnood kaasi oo laga soo xulay magaalooyinka degmooyinka gobolka deegaanada dowlad goboleedka Hirshabelle wasaaradda arrimaha gudaha iyo baarlamaanka. wareegtadan ayaa sidoo kale waxaa la ogeysiiyay guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka xubnihiisa kala duwan. xubnahan ayaa waxay kamid ah koow xildhibaan Abuukar Xasan Maganey waa Ali Xasan Maxamed Cabdirasaaq Cumar Bool Xaaji Cabdullaahi Sanay
aadan cali sidow, maxamed abshir nuur, cusmaan geedi cilmi, cabdulle colow axmed iyo maxamed cali maxamuud, waxaana dhammaantoodba ay kamid yihiin shakhsiyaadka maanta la magacaabay guddigan ee waxa uu taalo howlo, waxaana uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cali Caadle inay dardargeliyaan howlahan loo idmaystay oo dhaqsiya badan ayuu sheegay inay ku soo magacaawdaan gudoomiye ku-xigeen iyo xogeyn si howlaha loo idmaday ay u dardargeliyaan. warkii saaxiibayaal aad ka daawanayseen warbaahinta halbeega wararka waa naga intaay nabadgelyo.